وزير ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga biyaha ee magaalada Burco iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha Burco iyo ku-xigeenkiisa oo iyaga si gaar ah khilaaf muddooyinkii ugu dambeeyay u dhaxeeyay ayaa maanta wasiirka iyo guddigan iyo labada xubnood ee maareeyayaasha ahiba waxa ay si rasmi ah warbaahinta ugu sheegeen in khilaafkaasi la soo gabagabeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliland ayaa dadweynaha magaalada Burco khilaafkan maareeyaha wakaaladda iyo ku-xigeenkiisa ka warqabay u sheegay in guud ahaanba khilaafkaasi uu dhamaaday wakaaladuna ay tahay mid si rasmi ah hawlaheedu u wadata madax iyo shaqaalana mid ah xiriirihii waa fadhiya isduwida gobolka waa fadhiya waxaan xaqiijinaynaa in maxaan ku raahdaa arrinka uu dhamaaday oo dhamaystirmay dad u sheegay reebra waxaan leenahay arrinkii wakaaladda oo aad khilaafkeeda aad maqasheen oo runtii aad wadnaha farta kaga haysay tolo wuxuu noqonayaa inaad ka seexato inay ka seexdaan baan u sheegay waxaan leenahay libaxna ma jiro shabeelle ma jiro xagga wakaaladda maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Burco Ibraahim Jirde iyo waliba maareeyaha ku-xigeenka Faaraxa ayaa iyaguna tilmaamay in khilaafkaasi uu ahaa mid run ah oo jiray hase yeeshee ay keentay bay yiraahdeen shaqada la wadaagayo waxa ay tilmaameen maareeyaha iyo ku-xigeenkiisu in guud ahaanba sida wasiirku sheegay khilaafkaasi uu yahay mid xilligan dhamaaday shaqada jiray uu wada qabanay inaanu cadayno in khilaafku uu soo afkaayo oo dhamaaday oo wakaaladdu sidii ay ahaan jirtay inay wax wasi kordhaan mooyaane aanay waxba ka dhacaynin annaguna aan uga shaqayno. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacda salaam sidaa uu wasiirkii unagu horreysiyey ama uu sheegay maareeyihii wakaaladdu khilaafkaasi wixii uu ahaa amaraadkiisa ugu baabay marka hore mu ahan mid deeminoo shaqo saameeyey dhaqan saameeyey bulsho saameeyey guddiga biyaha ee magaalada Burco oo ka kooban guddi odayaal ah ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waana kuwan iyagoo dareenkooda cabirayay sida ay uga xun yihiin in had iyo goor khilaaf soo noqnoqda oo dhex yimaado maareeyaha iyo ku-xigeenkiisa oo calool xaagan oo fiican waana ka aragtay walaad kulliye wada fadhina wuxuu sida loo gudbiyay ma hela arka fudud yaa baan uga naxnay anagu markii aanu maqalay wakaaladda biyaha waxa ka jira khilaaf waa ku xiiqdaan meesha ma yaalin ayaa markiiba la eegay waxa weeye dadka markay tallaabaan wixii dibadda u soo baxaan ayaa la sarifaya magaalooyinku maantay la qabnaa maareeyaha wakaaladda biyaha Burco iyo maareeyaha ku-xigeenka oo xilka maamula wakaaladda biyaha ee magaalada Burco maamulayay in ka badan 2 sannadood ayaa waxa ay qabteen shaqo aad u ballaaran oo dadka magaalada Burcana ay ka mahad sheegteen Cabdi Sattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.